Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan walaalada qaaliga isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba insha Allah. Waxaan ii rajeynayaa caafimaad hadduu Ilaahay yiraahdo. Asxaabtayda qaaliga baryahan waan idinka yara maqnaa, waan yara mashquulay. Maanta ayaan dib ugu soo noqday YouTube channelkii. Maanta waxaan noo wadaa insha Allah video cusub hadduu Ilaahay yiraahdo. Idinkana waxaan idinka codsanayaa like, share, comment. 10 ayaan ku sii soconaa insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad i gaarsiin doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Waan iniga mahad celinayaa walaalada igu xiran. sidaad mar walba iigu xirantihiin oo ila socotaan asxaabta kalena soo booqatana waxaan leenahay subscribe like share gambalaalkana furo insha Allah si aad uga mid noqoto walaalada nagu xiran walaaladii qaaliga maanta waxaan noo wadaa sawaayad aad u jilicsan una macaan insha Allah oo qalaalkeeda aad ku walaaladii qaaliga sawaayadan sideeda ayaad ku cuni kartaa dad untana maraqood u samaysan kartaa iyo wax alaaliyo waxaad jeceshahay marka insha Allah hadda halkan waxa iigu jira wuxuu ahaa bur waxaan ku darsaday mulqaacada afkeeda ama qaanda afkeeda hore oo sokor ah iyo in yar oo cusba insha Allah waxaan kaloo ku darsaday bakeeri caano oo kulul iyo bakeeri biyo ah intaas ayaan ku qastay qiyaasta waxa adiga qasanayso qof walba intuu qasanayo qiyaastina isaga ayaa yaqaana ani markaad intan burka aan soo diyaarsaday waxa ii qooyay bakeeri caano iyo bakeeri biyo ah caanahana waan soo diiriyay biyahaas waa iska biyo tubada maan deeranin iyaga marka insha Allah intaas ayaan hadda isku daray oo isku qasaya sidaad aragtaanba waxaan rabaa inaan burka si fiican isku dhex geliyo insha Allah sawaayadan waxay u baahan tahay in xoog loo xasho ama xoog la isku qaso oo si fiican burka yacni u xashtid oo u qastid oo isku dhex gelisid ka bacdina hadhow sawaayad yar oo macaan oo jilicsan oo maasha Allah ayaa kaaga soo baxayso marse haddii qasida kaa xumaato waxa waaye hadhowti dubisteedana ma fiicnaanayso oo way kaa xumaanaysaa marka waxa wanaagsan in aadan adkaynin xoog u adkaynin jilicna aadan ka dhigin laakiin aad dhanka jileeca u yara badiso xoogna uuna kaaga adeegna uuna ka ahaanin marka waxay kuu sahlanaanaysaa dubniinkeeda ayaa si fiican kuugu dubmaysa hadhowti markay jilicsan tahay wax yar laakiin jileecayna ahayn oo si yaroo qiyaaso normaal ay tahay marka asxaabta qaaliga hadda waan soo qastay sidaad u jeedaan kadib waxaan marmariyay wax yar oo saliid cuntada ah hadda waxaan sameynayaa waan dhex gelgelinayaa saliidii ayaan is dhex gelinayaa saliidaasna waxay kaa saacideynaysaa burka inuu si yaroo fudud hadhowti kuugu fidsamo insha Allah marka hadda waxaan sameynayaa bac ayaan soo qaadayaa bacaha cuntooyinka lagu daboolo ayaan ku daboolanaynaa insha Allah waa dhiganaynaa 2 saac kadib ama 3 saac intay noqoto ayaan isku soo noqon doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo halkaas ayaan hadda ku daboolanayaa insha Allah bidnillaahi kariim isku soo noqod wanaagsan walaaladii qaaliga burkeeni hadda 3 saacadood kadib ayaan soo qaadanay burkana qamiir maaha waxaan ku daray wax qamiir la dhaho looma dhaweynayo sawaayada dadka qaar qamiir ayay ku darsadaan laakiin sawaayada qamiir laguma daro sidan ayay ku fiican tahay bilaa qamiira waqti hore qaso maxaa iraahdaa dhigo kadibna maxaa iraahdaa saacado kadib dubo laakiin haddaad tiraadid hadda aan qasayaa horana ka dubayaa taas sawaayad kuma noqonayso marka walaaladeeda qaaliga hadda sidaad u jeedaan 3 saacadood kadib burka waan soo qaadanay waan googooyay halkan ayaan ku saftay kadib waxaan sameynayaa waan fidinayaa insha Allah sidaad aragtaanba hadda hore kama dubayo fidintaani toole markaas saas u fidiyo kadib waxaan sameynayaa oo waxoogaa yar aan kala bixiyo burkii waxaan sameynayaa saliid yar ayaan dhexda kaga shubayaa sidaad aragtaan kabacdi saliidaasi toole ayaan marmarinayaa kadibna labada dhinac ayaan kasoo laabayaa wax yar waxaan jajab ku siinayaa meesha aan ku fidinayo si uu u kala baxo burka kadibna labada gees ayaan iskaga keenayaa insha Allah haddana xabadii labaad ayaan sidii oo kale hadda ku sameynayaa sidaad aragtaanba hadhowtina burka markaasaan u laalaabtid wuxuu kuu noqonayaa bur isla eg markaa fidisid oo 4 gees iska la eg oo si yaroo qurux badan kuugu soo baxo insha Allah marka mar walba haddaad sidan u fidiso oo u laalaabto oo haddana marka dambe aad dubaysid aad fidisid sawaayadaada sawaayad 4 koone iska la eg oo qurux badan ayaa kaaga soo baxayso oo nashqadeeda calashaan nashqad yar oo qurux badan kusoo baxayso marka hadda gidi sidan ayaan usoo laalaabayaa saliid haka iloobin saliidana mar walba inaad dhexda ka mariso markaad isku laabayso burka insha Allah markaad sidaas ayaan saliid u marmarinayaa hadda aragtaan kadibna sidaas ayaan jag dhulka ugu siinayaa meesha aan ku lawaxayo kadibna waan isku laabayaa sidaad aragtaan hadda burkii oo dhan waan soo laalaabay haddana waxaan sameynayaa waxaan galay qaybtii kale ee dubniinka insha Allah sidaad aragtaanba waan fidinayaa hadda soo u jeedaan si yaroo isla eg oo isla siman ayuu u fidsamayaa burka markaan hadda fidinayo waxaan ugu wacan laalaabistii aan markii hore soo laabay ee aan saliidda dhexda ka marinayay qaabkii aan usoo laalaabay marka maasha Allah bur isla eg oo 4 koone iska la eg oo siman ayaa kaaga soo baxaya meeshaas maasha Allah marka hadda waxaan sameynayaa xabadii ugu horeyso waaye hadda xabadaani toole birtii ayaa dabka ii saaray
marka hadda waan dubanaynaa sidaad aragtaan birtii oo qalalan oo wax saliid lahayn ayaa hadda saaray xabadii ugu horeysay ayaan dusha ka saaray kadibna waxaan sameynayaa waan gedinayaa iyadoo sidii bilaa saliid ah ayaan haddana dhanka kale u rogay waad aragtaan qaybtii hoose hadda waatan dusha aan soo mariyay wax yar ee soo yara dubnatay laakiin weli ma la dubin haddana waan gedinayaa qaybtii hore ayaan hoos u gedinayaa waa taas sidaas usoo kaceysa maasha allah quruxda badan kadib markaas ayaan saliidda ku shubayaa sidaad arkaysaan saliidda ayaan ku wareejinayaa waan gaarsiinayaa afarteeda koone kadib markii hoostaada kasoo gududato haddana waan rogayaa dhanka kale ayaan u rogayaa saliid kale kuma shubaayo tii hore dhankaas aan ku dubay hadda ayaan marmarinayaa ayaan ku wareejinayaa waan gaarsiinayaa burka dhinacyadiisa dhan kadib intaas ayaa ku filanba saliid kale uma baahno oo aan kusii daro oo aan kusii dubo haddana hadda xabadii ugu horreysay waa taas waan kala baxnay maasha allah sidaas quruxda badan ayaa noogu soo xabadeenii labaad ayaan haddana saaranay sidaad arkaysaanba tabtii hore unbaa mareysaa waa saareysaa burkii oo qaleel ah haddana dhanka kale u gedinaysaa haddana dhanka kale saan camal markuu noqdo dhankii hore haddana rogaysaa kadib saliidda ku shubeysaa marka saliidda ayaad haddana sidaa ugu wareejinaysaa maasha allah hoosta hadda markay nooga soo yaro dubanto haddana waan gedinaynaa qaybtan kore ayaan haddana hoos u gedinaynaa kabacdina haddana qaybtaas ayaan ka dubaynaa waa taasaa hadda saas ayaan haddana u gedisanay qaybtii kor ayaan hadda dubaynaa haddana maasha allah bahal sawaayadoo qurux badan oo kaale iska arag ah oo aadna u jilcan caruurta waxaan ku dhahay haddaa gacanta jabjab u saarta ay cuni karaan kelideed iyadoo ah haddaad koob shaah ku siiso ay kuugu cuni karaan haddaad maraq u samaysato kasii fiican wax alaali waxay diideysa ma lahan hadda waa xabadeeni labaad sidaad u aragtaan maasha allah tii saddexaad ayaan haddana saaranaynaa insha allah marka burkii ii laalaabnaa ee ii diyaarsanaa ayaan kulligood marba xabad soo fidinayaa markaasaan sii saaranayaa dabkana waa inuuna xoog kuugu dheereysnaan maasha allah waa taas quruxda badan hadda labada xabo ugu horeysa ayaa saxanka ku jirta sidaas quruxda badan ayayna noo tahay jileec gacantaada ayaa saas ugu goyn kartaa haddaad saas fariisuul ugu soo qabato maasha allah tii saddexaad ayaa hadda noo saaran marka dhammaantood sidaas aan nii tusay hadda saddexda xabo ayaad usoo wada dubaysaa wataas saas usoo kacaysaa maasha allah bur haddaad si fiican burka u qasato maasha allah burkuu soo kaco oo kaala iska araga oo markuu dumaayo si qurux badan kuugu dumo ayuu kuu noqonayaa maasha allah marba haddaad qasida ku dadaasho oo si fiican aad u qasto burka caanana aad ku qasato oodan biyo ku qasin maasha ayuu kuu noqonayaa maasha allah tabaaraka allah marka asxaabteeda qaaliga ah waa taas burkeenii sawaayadeenii ama kimisteenii sidaas ayay noogu soo baxday maasha allah marka anaga maanta waxaan u sameysanay qada ayay ahayd maraq ayaan u sameysanay quraac waad ka dhigan kartaa haddaad rabto casho waad ka dhigan kartaa haddaad rabto wax alaali waxaad rabto ayaad ka dhigan kartaa haddaad rabto intaad dubato ayaad fridge-ka hoose gashan kartaa oo maxaan idhaahdaaye marba xabadaad rabtid inta la soo baxdid kululeysan kartaa ma halaabayso sideedaas ay ku ahaanaysaa maasha allah makroofka ayaa yada gelinaysaa waad ku kululeysanaysaa maasha allah tabaaraka allah sideeda iyadoo ah ayaad ku cunaysaa oo haddii fresh inay kuu tahay aamoodo marka walaaladii qaaliga ah maanta sawaayadaas ayaa noo soo sameeyey maasha allah tabaaraka allah quruxda badan waxaan jeclahay inaad ka heli doontaan insha allah idinkana waxaan idinka codsanayaa fiidiyoyada inaad ii sheer gareysaan like share comment waana ku mahadsantihiin fikradihiina qurquruxda badan ee aad mar walba ila wadaagtaan insha allah waxaan igaga tegayaa waxaa noo balana fiidiyowga xiga insha allah waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu